believe this belongs to you. You dropped it in my cup. Oh my God. You found my ring. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa idin salaam saaxiibayaal. Waxaan rajaynayaa inaad caafimaad qabtaan. Xilliga aan ku jirno waxaan dhihi karnaa qalbiga wanaagsan iyo naxariista waxa uu ku dambeeyaa dadka masaakiinta ah. Si kale markaan u dhigno, samaynta wanaagga kuma xirno qofka dabaqada uu kaga jiro nolosha. Yacni in uu yahay qof dhaqaale leh iyo inuu yahay qof duruuf la nool. Adduunkan aynu ku nool nahay wax walba ayaa ka dhaca. Wanaag yar oo aad samayso ayaa wuxuu Allah subxaanahu wa tacaala noloshaada oo dhan ku bedeli karaa. Sidoo kale xumaan yar oo aad samayso ayaa adiga kugu soo laaban karta, noloshaadana dhinac xun u bedeli karta. Waxaa jirta maamaha English oo dhahaysa what goes around comes around. Taa oo micnaheedu tahay waxaad samaysato ayaad leedahay. Haddii qof xumeeyo dadka kale, isagana waa la xumayn doonaa dabcan. Mawduuceena maanta ayaa ku saabsan sheekada nin miskiin tuugsade ah oo helay faraanti qaali ah kadibna uu celiyo qofkii lahaa. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Ninkan oo lagu magacaabi jiray Billy waxa uu ahaa miskiin tuugsade ah. Guri uu ku hoydana ma lahayn oo wadada ayaa hooy u ahayd. Sida caadada u ahayd maalin isaga oo fadhiya meel wado ah, gacantana ku haysto koob yar oo uu ku tuugsanayay, ayaa markii ay dhaafeen dad badan oo uu caawin weydiistay, waxaa soo martay gabar dhalinyaro ah. Markii ay u soo dhawaatay, ayay ka naxday dhibta ka muuqata ninkii odayga ahaa. Jeebka ayay gacanta gelisay. Halkii uu ka sugayay in ay siiso shilimaad yar, ayay $20 u soo bixisay oo ay siisay. Billy ayaa aad ugu farxay una mahadceliyay gabadhii. Waxa uuna weydiiyey sababta ay u siisay lacagta intaa le'eg. Gabadhii ayaa ugu jawaabtay, waxaan mar walba aaminsanahay oraahda dhahaysa what goes around comes around. Taa oo micnaheedu noqonayso wanaaggii aad samayso in uu dib kugu soo laabanayo. Haddii aad xusuusataan, waa maamaadii aan wax yar ka hor soo sheegnay. Billy ayaa weydiiyey magaceeda. Waxa ayna ku tiri magacaygu waa Sarah Darling. Waxayna u raacisay inay ka shaqayso meel aan ka fogeyn, wayna ka sii dhaqaaqday. Wax yar aan dul istaagno qodobkan. Waxaan ognahay dadka masaakiinta ah ee tuugsada, wax dheefka ama caawinta ay ka filaan bulshada waa mid aad u yar. Qiso yar oo dhab ah kuna saabsan qodobkan ayaan jeclahay inaan idinla wadaago. Qisadan waxaa ii sheegay adeerkay, isaga ayayna ku dhacday. Waxay ahayd xilligii magaalada Muqdisho hogaamiye kooxeedka ka talin jiray. Maalin maalmaha ka mid ah, isaga oo lacag ka soo qaatay xawaalad, ayuu soo maray hooyo miskiin ah oo tuugsanaysa, carruur badanna wadata, sidoo kale diif badan ay ka muuqato. Jeebka ayuu gacanta geliyey, 100,000 oo shilin Soomaali ah ayuu u soo bixiyey wuuna siiyey. Hooyadii farxad ayay meel ay iskayso weysay. Ogow xilligaas 100,000 oo shilin Soomaali ah waxay lahayd qiimo ka badan qiimaha hadda ay leedahay, oo halkii dollar ayaa la sarrifayay 6,000 oo shilin Soomaali ah. Hooyadii inta ay kala badatay ayay u ducaysay adeer, laakiin su'aashu waxay tahay maxay ugu ducaysay? Waxay ku tiri naarta Allah ku geliyo. No, God, please, no! No! Cajiib, farxaddii ayaa ka badatay. Waxa ay rabtay inay ku dhahdo jannada Allah ku geliyo, laakiin taa beddelkeeda waxay ku tiri naarta Allah ku geliyo. Dabcan qalbigeeda waxaa ku jira inay u ducayso, laakiin farxadda ayaa ka badatay. Waxaan sheekadan ku keenay Billy $20 in la siiyo kama uusan filaynin Sarah Darling. Aan u soo laabanno sheekadeena. Billy oo aad u faraxsan ayaa bilaabay in uu lacagtii tirsado. Weelkii ayuu ka rogay wixii ku jiray, gacantana ku shubtay. Lacagtii waxaaba uga soo dhex baxay faraanti diamond ah oo weliba qaali ah. Nuxurka sheekadeena hadda inoo bilaabatay. Ila soco. Billy ayaa dib u xasuustay in markii Sarah siinaysay $20 si kedis ah uu kaga dhacay faraantigeedii qaaliga ahaa koobka dhexdiisa. Waa uu ka daba cararay si uu dib ugu celiyo faraantigeeda. Meel walba ayuu ka raadiyey. Isaga oo ka quustay raadinteeda ayuu arkay dukaan lagu iibiyo dahabka iyo diamondka. Waxa uuna go'aansaday inuu gudaha u galo dukaanka si uu u ogaado qiimaha faraantigan. Ninkii dukaanka iibinayay ayaa ku yiri Billy, "Hay, maxaan kaa caawiyaa?" Waxa uuna ugu jawaabay, "Waxaan rabaa inaan ogaado qiimaha faraantigan." Faraantiga ayuu fiiriyey dukaanlaha, waaba diamond. Ninkii dukaanka joogay ayaa ku yiri, "Faraantigan waa mid aad u fiican. Waxaan kaa siin karaa $4,000." Billy waa uu yaabay. $4,000 ah waa lacag aad u badan. Haddii aan iibsado faraantigan, waxaan ka raysan doonaa inaan wadada seexdo, ayuu niyadda iska yiri. Ninkii dukaanka joogay ayaa bilaabay inuu u soo saaro lacagtii. Billy ayaa dib u xusuustay hadalkii ay ku tiri Sarah oo ahaa waxaad samaysato ayaad helaysa. Go'aankiisa ayuu beddelay, faraantigii ayuuna soo qaatay, isaga oo go'aansaday inuu raadiyo Sarah, faraantigiina dib ugu celiyo wax walba oo ay ku qaadato. Siduu u raadinayay, isagoo quus taagan, ayuu soo xusuustay erey ay ku tiri markii ay lacagta siinaysay. Ereygaasoo ahaa waxaan ka shaqeeyaa wadada dhinaceeda, waana hubaa inaan agaarkan isku arki doono. Intaas markii uu soo xasuustay ayuu bilaabay inuu ka raadiyo xafiisyada u dhow, isaga oo xafiis walba weydiinayay Sarah Darling, laakiin qof garanaya ayuu waayay.
kama uusan rajo dhigin raadinteeda. ugu dambaynna waa uu helay gabadhii faraantiga lahayd. Salaan kadib waxa ay weydiisay waxa uu u baahan yahay. Faraantiga ayuu tusay isagoo leh, waxaan rajaynayaa in faraantigan kaaga uu yahay. Sarah, oo faraantiga muhiim u ahaa in muddo ahna raadinaysay, ayaa la yaabtay sida ay dib ugu heshay faraantigeedii. ninkii miskiinka ahaa ay u mahadcelisay, waxayna weydiisay sababta uu ugu soo celiyey faraantigan qaaliga ah isagoo uu ku heli karay lacag aad u badan maadaama uu yahay qof lacagta aad ugu baahan. Billy ayaa ugu jawaabay, adiga waad i caawisay. waxa ugu yar ee aan kuu qaban karo ayaa noqotay inaan faraantigaaga dib kugu soo celiyo. waxa uu isii raaciyey oo uu kula kaftamay, gabar caqli badan ayaa hadda ka hor waxay igu tiri, wixii aad samaysato ayaad helaysaa. waa mahmaahdii ay ku tiri markii ay siinaysay $20 isla markaana uu weydiiyey sababta ay lacag badan u siisay. Sarah ayaa qososhay, dareentayna inuu iyada ka wado. way u mahadcelisay, waxa ayna u sheegtay qiimaha uu agteeda ku leeyahay faraantigan iyo in aysan hilmaami doonin wanaagga uu u sameeyey. intaa kadib ninkii waa uu iska soo baxay. waxaa jira websiteyo lagu magacaabo GoFundMe oo ah platforms lacag loogu ururiyo cid walba oo caawin u baahan, waxaana lagu qoraa sheekooyinka wanaagsan ee saamaynta leh sida sheekada ninkan miskiinka ah oo kale. gabar la shaqaynaysa Sarah oo arkaysay wax dhex marayay iyada iyo ninkan miskiinka ah ayaa ku tiri Sarah, ka waran saaxiib haddii aad sheekada ninkan ku baahiso baraha bulshada si lacag loogu ururiyo maadaama uu yahay qof aad u qalbi fiican. Sarah ayaa ku qanacday fikirkaas, waxa ayna bilowday inay furto page iyada oo ku qortay sheekada Billy qaabka uu ugu soo celiyey faraantigeedii. sheekadii ayaa ku baahday baraha bulshada, dad aad u fara badan ayaana ka falceliyey, lacago badan ayayna ugu deeqeen. usbuuc ayaa Sarah waxa ay ku aruurisay in ka badan $190,000. maalmo kadib Sarah waxa ay raadisay Billy. markii ay ugu tagtay halkii uu fariisan jiray ayay salaantay, kadibna waxa ay ku tiri, waxaan kugu hayaa lama filaan. boorso ay ku jirtay lacagtii ay uga soo ururisay internetka ayay u dhiibtay, waxa ayna ku tiri, waa $190,776. adiga ayaana iska leh. Billy ayaa yaabay, rumaysanna waayey lacagta intaas la eg inuu isaga yeelan karo. waxa uu ku yidhi, macquul ma ahan taas, siday wax u jiraan. Sarah oo isku dayaysa inay u sharaxdo sida ay wax u dhaceen ayaa ku tiri, waxaan furay page donation ah ama tabarucaad ah. waxaan ku qoray sheekadaada aniga oo dadka u sheegay waxa aad samaysay oo ah inaad ii soo celisay faraantigaygii guurka, adiga oo ah qof u baahan lacagta uu joogo faraantigaas. dhammaan dadkii akhrisay sheekadaada ayaana kugu deeqay lacagtan. hadda kadib kama welweli doontid meel aad seexato, guri aad adiga leedahayna waad iibsan kartaa. Billy oo wejigiisa farxad badan ka muuqato ayaa ku yidhi, ma rumaysan karo waxa dhacaya, allah ku barakeeyo, ayuuna sii raaciyey. sidoo kale ayay ugu jawaabtay, wayna ka tagtay. mowduuceenna maanta intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa. fadlan haddii uu ku cajabiyey muuqaalka, like saar lana wadaag asxaabtaada kale. haddii uusan ku cajabinna kuma qasbanid. waa inoo muuqaalkan muuqaalkiisa xiga. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.